الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واجتهدوا في العبادة وسلوا الله تعالى التوفيق والقبول. والله waxaynu ku soo dhex jirnay dhowrka bilood oo u dambeeyay arkaanul islaamka xaqiijintiisa, salaadii, soomkii, sakadii, xajkii. bilahan aynu soo dhaafnay ku urursanaayeen ama sakadana lagula dadaalaa. waxaa kale aynu ogsoonahay cibaadooyinka qofka muslimka uu gudanayo waqtigiisoo dhan baa ilaahay uu ku camiray cibaado saacad walba taagan, sida dikriga iyo tasbiixda iyo istikfaarta iyo qur-aanka kariimka, cibaadooyinka mudlaqa oo dhan sii daysan aan waqti lahayn. cibaadooyinka qaarkoodna maalinkii iyo habeenkii baa lala imanayaa, sidaa salaada aynu ugu celcelinayno kale. cibaadooyinka qaarkood waa usbuucii mar, sida jumcadan aynu u fadhino. qaarkood cibaadooyinka waa sanadkii ayaa mar lala yimaadaa, sida sikadii iyo soomkii iyo muslimiinta oo xajkii isugu imanaya. cibaadooyinka qaarkood marka shaksiga loo eego cumrigii waa hal mar, sida xajka oo kale. marka qodobkaynu maanta baraarujinaynaa waxa weeye cibaadadu inuu ilaahay ku waafajiyo waa nicmo. nicmo labaad baa ku lifaaqanoo ay tahay in hankeenuna gaadho ilaahayna aynu barino, ta horena ay ku hirgelayso oo ah cibaadada loo yaqaano alqabuul aw qabuulu daaca, in camalkii laga aqbalay. marka mowduuceenna maanta kaasuu la xidhiidhaa cibaadooyinka marka aynu gudanno waa inaynu ilaahay barinaa inuu inaga aqbalo. cibaadadii in laga aqbalay intay culimmadu soo ururiyeen calaamaday leedahay, nusuusta iyo daliilada laga soo ururiyey. calaamadaha haddaad isku aragtay ilaahay ku mahadna, haddaad iska weydana isku dar duca iyo dadaal labadaba. asbaabu lqabuulna waa la ydhaha, calaamaatu lqabuulna waa la ydhaha. camalkii aada ku dadaashay in laga aqbalo, oo camalku wuxuu noqdaa saxiix iyo maqbuul. farqi baa udhaxeeya. isagoo saxiixu kayru maqbuul noqon karaa. macnaha saxiixu waa inaad nidaamkii iyo sidii sharcigu yidhi waafajiso, laakiin isagoo aad nidaamkii waafajisay, shareecadu ay cibaadadan u dhigtay, ayuu kayru maqbuul noqon karaa. waayo aqbalku waa wix ilaahay agtiisa yaalla subxaanahu wa tacaala. ilaahayna waa tilmaamo, wuxu uhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin wa kullu camalin saxiixin laysa maqbuula. sidaa daraaddeed baa camal wal oo saxiix oo sharciga la waafajiyeyba aanu maqbuul noqonayn. marka aqbalku waa arrin ilaahay ku xidhan ay tahayna in ilaahay la qoriyo. sababaha waxaa kow ka ah qofku marka uu cibaado u baxo ee uu ku dadaalo inuu ka ilaaliyo dembiga iyo macsiyada ka dambeeya. oo arrintaasi waxay calaamad u tahay hadduu marna xaggan u ridayo marna xaggan, inaan camalkiisa iyo cibaadadiisa la aqbalin bay calaamad u tahay. waayo rabbi waxa uu tilmaamay subxaanah, marka cibaadadu ay tahay cibaado wanaagsan oo tayo leh, inay qofka u diido shayga dembiga ah. siduu ilaahay baa yidhi inna asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar. salaadu qofka dembiga iyo foolxumada u diidaa. salaada qura maaha, cibaadooyinka o dhan waa la mid. xishood baa ayaa qofka galaya iyo isagoo ka khajila dembiga iyo macsiyada. waxaa sababta labaad ay tahay inuu qofku ka warwarsan yahay camalkiisii la aqbalay. waa calaamad labaad oo sheegaysa qofkani in cibaadadan laga aqbalay bay sheegaysa. kol haddii aanu kalsooni iyo isqancin isa siinin ee uu ka warwarsan yahu leeyahy cibaadada kolkii hore samaynteedu ku warwaraya, haddana aqbalkeedu ilaahay baryaya ka warwarsan yihi, oo wuxuu ogyahay wax badan oo la sameeyo inuu alla ku soo celin karo addoommo badan. cabdillaahi bnu cumar allaha ka raali noqdo, in taabiciga ardaygiisa ahaabaa la socday, way xajayeen
iyagoo socodkii ku jiray iyo masiiradii iyo safarkii dheeraa ayaa ninkii la socday wuxuu arkay dad aad u badan oo xajka u soconaya markaasaa wuxuu uhi maa akthara alyawma alxujaaj xujaajtu sanadkan aad bay u badan yihin ibnu cumar wuxuu uhi maa aqalahu tiradoodu way yar tahay buui markaa hadalkiisii unbuu ka dheegtee wuxuu isaguna u jeedaa inta ilaahay ka aqbalay baa yar waxa aad arkaysa ee faraha badan ee cibaadaysanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa su-aal weydiisay xaaskiisii caaisha allaha ka raali noqday aayad suuratu lmu'miniin ku sugan aayadda suuratu lixda aayadda lixdanaada suuratu almu'minuun qad aflax ayay tafsiirka aayaddaa weydiinaysaa caaisha rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtuna waxay nasiib ku lahaayeen qur-aanka fasiraadiisa iyo fahamkiisa nebigay ka raajici jireen calayhi salaatu wasalaam oo ay ka ag dhowaayeen oo shaygii ka qancinaya wahmi iyo wax madmadow ka galo waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah aayaddaasi macnaheedu waa maxay bet aayadda waxay leedahay mu'miniintu waxa weeye kuwa wixii ay sameeyeen samaynaya iyaga oo qalbigooduna uu cabsanayo wixii uu qofkani sameeyey ayuu samaynayaa isagoo ka warwarsan marka ma waxa weeyaan bay tihi qofkii sinaysanayey ee waxadayey ee dabeedna dembigaa uu galay iyo xumaantaa uu sameeyey qofkii khamriga intuu cabay waxadayay dembigaa uu galay ma qofkii ka cabsanaya ee ka warwarsanaaba marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam mafhuumkaa qalloocsamay iyo sidaa qaladkee u fahamtay wuu saxayo wuxu uhi maya mee waxa weeye qofkii tukanayay ee soomayay ee sadaqada bixinayay ee haddana cibaadadaa uu sameeyey ka warwarsanaa in laga aqbalayo in kale ayaddu qofkaasay sheegaysa waa qof khayrkii u taaganba oo waajibaadkii waaweynaa laakiin aan isku qancinaynin adigu wax qof wanaagsan baa tahay oo darajaad gaadhay oo camalkaagii waa la aqbalay saa maaha aragtidiisu waxa wey talow kan ma laga aqbalay talow dadaashaye talow aqbalkiisii muxuu noqday waa dadka sidaa uga cabsanaya ee uga warwarsan camalkii ay sameeyeen saasuu ku saxay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkaa weeye dadku ilaahay yihi ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum laha saabiquun calaamada saddexaad waxa weeye altawfiiqu ilaa acmaalin saalixatin bacdaha qofkii waa inuu kordhiyaa oo uu ka reeyaa oo uu ka badiyaa cibaadada intii hore uu samaynayay waa calaamad sheegaysa aqbalka kol hadduu intuu cibaadadii gutay sunnaheedii iyo faralkeediiba ku dadaalaya mar walba inuu sii kordhiyo taasina waxay calaamad u tahay in laga aqbalay allah inaga aqbala camalka iyo cibaadooyinka aynu samaynayna kala duwan وهذه هي الاستقامة التي ذكرت في النصوص قرآن وحو كورا ما حديث كرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقول لي شيء لا يقانا الاستقامة قف إنه تبت توصن كو إغاظة وآنو كبيرين فاستقم كما أمرت سيدي الله قفراء هذه يعدي كرة عظيمة النبي محمد كنت توصنوا بالي جدك حقا marka istiqaamaduna waa taa weeye qofku intuu daacadii cibaadada sameeyo inuu biiriyo oo uu kordhiyo oo uu kor u socdo calaamada afraad waxa weeye istisqaaru lcamali wa cadamu lcujbi walguruuri bih qofku inuu camalkiisu la yaraado oo uu idhaahdo kani talow ilaahay agtiisa muxuu ka goyn oo aanu la yaabin oo aanu weynaysanin oo markaad adigu tukatee aada soontee aada sadaqa bixiso dadka meelahan jooga waa inaanad camalkaagaa ugu faanin oo aanad odhan kuwani maxay sheegaya wax alla waxayin ma jiro kuwan ilaahay naar buu geynaya adigu waad iska jannaysanta masaajkaabaad ka soo baxa war innagu khayrun baabaynu wadnaaye dadka in badan oo ka mid a ayaad caynkaa noqoto caynkaa noqotay amaya camalkaaga waa inu kula yaraado waa inu kula weynaanin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray wuxuu u taagnaaba habeen iyo maalin diin iyo dadaal buu ahaa haddana ilaahay uu la hadlo waxau ihi yaa ayuha nabiyu qum yaa ayuha almudathiru qum faandir rabbaka fakabir wahiyaabaka fadahir warujza fahjur walaa tamnun tastakfir waxaad bixinaysa ha badsan ila waa cibaada une shaygaad bixinaysa ama cilmiya ama talaa ama awooda ama adduuna ama dacwada ha badsanin oo ha odhanin kani wax weyn weeye wax weyn baa sameeyey marnaba ha odhanine
shaygu ha kula yaraado waayo addoonku markuu ilaahay yaqaano subxaana wa tacaala rububiyadiisa rabbiyadiisa awoodda uu leeyahay sifooyinkiisa cilmigiisa abaalmarintiisa waxaasoo dhan addoonku markuu ogyahay wuxuu ogyahay jiniyensi waxay camal sameeyeen haddii isaga lagu soo ururiyo inaanu ilaahay agtiisa miisaan lahayn buu ogyahay sidaa daraaddeed buu yaraysanayaa qofku waa calaamadiina calaamadda shanaad waxa weye xubu daacati wa kurhu lmacsiya inuu qofkii jeclaado cibaadada iyo daacada macnaha khayrka la sameynaya ilaahay uuna faray xaqa ilaahay uu nagu leeyahay aynu gudanayno qofku waa inuu jeclaado dembiga iyo macsiyadana naco kurhu lmacsiya wa xubu daaca waxay taasi sheegaysaa inuu camalkii iyo cibaadadii macaansaday bay sheegaysaa oo shayga markaad nuxurkiisa u dhaadhacda ee uu tayo kula yeesho waad macaansataayoo kama hadhin qofka ganacsadaha hadduu faa'iido helo wuxuu aada ugu xisaabtamaa intuu dhadhamiyo macaankeeda inuu yaro kordhiyo yaro biiriyo yaro kordhiyo oo bil waliya sanad walba idhaahdo maxaa ku kordhay leanna wuu macaansada wuu dhadhamiyey marka tanna waa saas oo kale qalbigii baana ku degay oo uu ku raasukhay oo uu biyo dhigay khayrkii safbar kuma ah aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub calaamada lixaad waxa weeye alrajaa wa kahratu ducaa inuu qofku rajadii ilaahay badiyo camalkii waad yaraysanaysaa haa laakiin haddana waxaad leedahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu iga aqbalo igana abaaliyo jannana igu bedelo cadaab iga nabadgeliyo adigoo cabsidii hore usii samaynaya cabsidii way jirtaa ad ilaahay ka cabsanaysa iyo cadaabkiisa rajadiina waad ku daraysaa raxmaddiisa aad rajaynaysa labadaa dhexdooda waxaa ka soo baxay inaad ducada badiso oo qofkii aada u ducaysto sidaasuu qur-aanku ina barayaa nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi ismaaciil goobtii ugu qaalisanayd oo kacbadaa bay dhisayaan camal la qabto kuwii ugu fadli badnaa weeye haddana waxay ku ducaysanayaan inuu ilaahay ka aqbalo waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim iyagoo dadaalkan keligood wada gurigaa keligood dhisaya ayay leeyiin ilaahu naga aqbal calaamadda toddobaad waxa weeye altaysiiru lidaacati walibcaadu can ilmacsiya qofkii inuu arko alle xaggiisa in looga fududeeyeyba oy u sahlanaatayba wixii wanaagsani wixii xumina ku adag yahay oo qofku markuu xumaado waxa xunbaa u fudud waxa wanaagsanina wuxuu kaga dhigan yahay buur buu kaga dhigan yahay saa daraaddeed haddii la idhaha isqaawiyo maanta baddan dabaalo maanta oo dhan buu dabaalanaya laakiin haddii la idhaahdo jinaabada ka maydho ama salaada u weysayso way ku adagtay afartaadan xubnood maydhoo laba ragcadood tuko way ku adagtay laakiin jiimkaa inuu ama halkaa lagu jimicsado inuu saacada ku jiru dhidido wuu kari karaa isagoo qaawan inuu dabaasha galana wuu kari karaa macnaheedu waxa weeyaan wixii xumaaba ayaa dhandhan u samaynaya wixii wanaagsanana way ku adagyihin sidaa cagsigeed weeye qofku markuu aqbalkii iyo ijaabadii camalka hela alla wuu u furaa wuu u fududeeyaa alla wuxuu uhi faama man acطى waاtaqa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusra وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قفنا وحي ونكسنا با الله فضينيا قفنا وحي حما با الله فضينيا اليسرى والعسرى وخصلت أرنت ونكسني أرنت حم قفكي مركو خير كي وهلنا هذا خير بخير دينا وحو فضاده وحي ونكسنا مركي كلنا وحي ونكسنا با كو أتكاد وعلامة دينا marka haddaad aragto masjidka iyo dikriga iyo cilmiga dhagaysigiisa iyo wacdiga iyo qur-aanka akhrintiisa iyo salaatuleylka iyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar sadaqada wax waliba inay kuu sahlan yihin oo culays iyo diiqad iyo xidhxidhnaadaana dareemayn waa calaamad aqbal haddii kale isdawey oo inaad dhakhtarka diinta isjiifisa ayaad u baahantay calaamadda sideedaad waxa weeye xubu saalixiina waa buqdu ahli lmacaasi inuu qofku hadduu wixii wanaagsanaa jeclaaday dadka wanaagsanna waa inuu jeceliyo dadka xunna waa inuu nacaa waayo sharbu waxaa kaga soo kabacaya xumaan iyo balaayo dadka xun markaa mar walba wuxuu xiisaynayaa dadkii wanaagsanaa iyo cidda khayr leh iyo cidduu ilaahay ka raaliya buu xiisaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya waxau yihi xadiidkii bara bnu caazib warinayay ee axmed ku sugnaa ina awthaqa cura aliimaan an tuxiba fi اllah
وتبغض في الله حركها لقبصده لا عسكره لا إركده إيمانك وحقوق أضج إن هذا إلهي درادي وحج على عطو إلهي درادينا وحن عضو dadku waxay wax u jeclaadaan danahooda iyo danta xisbigooda iyo dawladooda iyo reerkooda iyo maxaan ka helayaa iyo maxaan ka faa'iidayaa taas hadda wax loo jeclaado waxna lagu nacaa nafta way ku adag tahay diin iyo alla daraadi iyo akhlaaq wanaagsan iyo qiyam fiican inaad wax u jeclaataa nafta way ku adagtay marka taa ogolaysiisa meel baad gaadhay man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman riwaayada kale waxay sheegaysaa qofka u nacay u jeclaada ilaahay daraadi wax u bixiye waxna u hakiya ilaahay daraadi iimaankii uu buuxsaday calaamada sagaalaad waxa way kathratu istighfar inuu qofku markastoo daacada uu sameeyo istighfaartana badiyo taasoo sheegaysa iyada laftigeedu inuu waa warwar kala oo uu leeyahay kullay sidii uu ilaahay mudnaa umaad caabudine ama xaqa uu lahaaye bal camalkaa horeed samaystay wixii gaf kaa dhacay ila kullu ibnu aadama khata waxa la yina bani aadam oo dhami gaf la weey oo gafaa bal markaa wixii kaa dhacay istighfaar ka dalba buu leeyahay saasaanu diintu ina baraysa quraan iyo xadiis arkaanta islaamka waaweyn arkaan islaamka marka la dhameeyo ilaahay wuxuu ina baray inaynu istighfaar ka dabageyno adigoo rukni gutay iyo waajib arkaan islaamkiiba kamida ayaa haddana lagu leeyahay ka dabagee oo kulli faaqo raaci inaad ilaahay weydiisato wixii qalad iyo gafaynu ka dhacay xajkii ayaynu imanayna ilaahay wuxuu yiri thumma afiidu min haythu afaada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim idinka carafay goobi waaweynaa ka soo noqday haddana ilaahay dambi dhaaf weydiista buu istighfaarta badiya adoo sidaa uba hawshaysan ayaa haddana lagu leeyahay ilaahay leeyahay istighfaarta badi وبالأسحار هم يستغفرون صلاة الليل كبد استغفار كل فاقس هذا إلهي لفق يبا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأرهن نبي الله دردارني عليه الصلاة والسلام صلاة دي بينوغنا هاي مركا أينو كبحنا إرأي قوه الرئيين كنا واقعنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله صدح جر لو عليه خير بابات كصباح لكن وحوي كل وحبايس ويدارته أو هذيك الأمر الله مركات صلاة الشاب يسكت الشيطان كونه كحوله أو ما قنات جوجا وكارده أو مالك لا الله قبضته مركات قلقلوعة يسبر الرحلة كارد عضي يسلنان الشيطان كوبيري إن آيات استغفار الله كويدي سنيس وقدام بينتي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحفر إذا حياتي سين واستغفار كسوق جبجبيه يد ذلك وجود شري داعد إلهي الدين تهرم برينتي هذا أنا مركا أجش هذا السور واستغفار تبادل عليه ومعناها شرح سورة إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إلهي توبداد بو أقبلاي إلهي واحد ويدي ستا استنبغينو كاردا فنب محمد ركوع رأي سجود مركو كجرابو ورني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إلهي ويدن بداف علامات الطبناد هو مهم سن علاماتها أقبل كعملك وحوية المداومة على الأعمال الصالحة حتى هدانت كردينين إن أنت وديت شوك تيسو وأنا تكون وأنا فضيد السمن وأنا الدنيا كاكحين وأبد أهلي الدنيا أصحاب بدنا أنا كاكحين أرهنوا إلهي كاسوغي المداومة على الأعمال الصالح لأن أنت ناض الناش والرأس مالك تيبو كم تدا يا قفوا وكل جاي عندي كفر شد ميس ساسوها رسول كيني أي نكديني صلى الله عليه وسلم عائشة وحلا حديثك الصحيحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته برهدو النبي محمد عمل سمي حتى سنة بها هذا وتشوكتين تذكر وحو فري وحي تشوكتين كرانين السميان عمل هذا أحب الأعمال إلى الله أحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل عمل أردن إلى هاي وحو جعليك وقفك تشوكتيو هبير هذا تاسي وحي مركا نتيجة أهان كودا ليس هدا تشوكتيسو إلى هاي وحو كوا أبال قودا يالا قوبو بشارين
haddii uu kugu yimaado wax kaa mashquuliya camalkii aad joogtaynaysa oo cudurdaar kuu noqda waa laguu qorayaa adoo sameeyo kale cudur baa kugu yimid safar baa kugu yimid hurdaa kugu timid marka camalkii aad joogtaynaysay baabaad ka mashquusho aad ka dhacday adigoo kari waayey ma fursadu waayey ilaahay wuu kuu qorayaa adoo sameeyey oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu inoogu bushaareeyey xadiidkii bukhaari ku sugnaa idaa marida alcabd aw saafara kutiba lahu midlu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa qofku markuu camal cibaadaad joogtayn jiru samayn jiru ka bukooda ama ka safro intii leegu buu ilaahay u qoraya uu samayn jiray isagoo reerkiisa jooga uu samayn jiray isagoo caafimaad qaba hurdadiina waa la mid sida tilmaamaya xadiid kale saxiixa nisaa'i ku sugan maa min imri'in takunu lahu salaatu billayl فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة هدو قفك صلاة ذيك تكنشل ذكر السميت له خير ولي شوكتا أيوهاي إسلحانا آت سميسد مركز صوت وسطم كدبنا وكسيحضا انتي لك بيلها القرى والسميت لي هداي تبرق على هذه هداي صدر هذه هدو انت سوتشو سخري الهي وقرى ملايكتا مركاوي قبانو الهي وسي welibana hurdada laftigeeda sadaqa u noqonaysa niyad wanaagsan buu ku seexday waxa soo khayra la inoo bushaaraynayaa marka waa waxaynu ku shaybaarayno 10 kan arimood camalkan aynu sameeynayna aynu qabtahaynaynu dadaalaynayn u ordayno calaamadaha ma laga helay ha wax badan baad haysataa ilaahay ugu mahadna hadii kalena ku dadaal ducadana badi allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم